السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي رسول هذا هدي الله يدمو waxaan doonaynaa lesson-kan ama casharkan kaga hadalno sida barnaamijka buuga loogu record gareeyo dhacdooyinka caadiga ah ee ganacsiga ka dhex dhaca like this one waxaan doonaynaa inaan maanta qabano hadii Allah idmo inaan ka hadalno cashar yar ku saabsan sida barnaamijka buuga loo geliyo sida loogu record gareeyo initial investment lacagta lagu bilaabo ganacsiga oo initial investment-ga loo yaqaano marka barnaamijkan buuga barnaamij buug xisaabeed cusub weeye waxaa la doonayaa barnaamijka buuga in lagu qoro dadkii soo maalgashaday ganacsigan marka halkan waxaa inoo taala dhacdo yar oo ka hadlaysa qaabka lesson 6 loo gelin karo recording initial investment qaabka loo diiwaan gelin karo lacagta ugu horeysa ee ganacsiga lagu bilaabo okay waxaan sameyn doonaa ganacsiga soo maalgashaday saddex qofka ugu horeeya waxaa la dhahaa Axmed ganacsiga wuxuu maalgashaday 4,000 Omar isna ganacsiga wuxuu gashaday 4,000 Hamza ganacsiga waxay gashatay 4,000 lacagta totalkeedu wuxuu gaarayaa $12,000 waxaan doonaynaa inaan transaction ka xareeyno oo barnaamijka buuga aan ku xareeyno oo qof walba aan record gareeyno inta ganacsiga uu soo maalgashaday sidoo kale waxaan doonayaa lacagta inaan dhigno bangiga oo checking account aan ku shubno okay saaxiibayaal waxaan tegi doonaa hadii Allah idmo barnaamijkeena buuga waxaan eegaynaa in wax mataqaanaa activity ama dhaqdhaqaaq uu sameeyay buugan company and financial ba tegaynaa profit of loss ka tan tagno waa zero weeye okay sidoo kale waxaan tegi doonaa report kasna muhiimka ah balance sheet standard kan tegaynaa isaga laftigiisa waa zero wax asset ama wax liability equity oo jira ma jiro okay si dhacdada aan xareeyno oo u sameeyno recording initial investment lacagta ugu horeysa ganacsiga lagu maalgelinayo si aan u sameeyno waxaan tegaynaa menu-ga company waan tegaynaa then waxaan tegaynaa meesha qoran tahay make general journal oo ah in buuga weyn la geliyo waxa laga record ee ganacsiga laga record gareynayo okay halkan markaan tagno waxaan sameysanaynaa oo abuuranaynaa okay date-kan saxaynaa like this one date-ka maanta waa 2 January halka entry-ga ama entry number-ka dhacdada number-ka ay leedahay saano kala xaleenahay investment-igi koowaad weeye INV baa leenahay /1 waa kii koowaad noqonaya dadna xaleenahay tab okay halka akoonnadii bay abuuranaynaa waxaan doonaynaa lacagta inaan deposit gareeno aan dhigno bangiga si aan akoonka u sameeyno fanaxda ay taban furaynaa add new baa leenahay okay then halka wuxuu leeyahay type-ka akoonka ama nooca akoonku noqonayo category-ga uu akoonkaas noqonayo ii sheeg waxaa leenahay waa banking baa leenahay waa lacag la deposit gareynayo checking account then waxaa leenahay continue okay halka markaan imaadno type-kiisu banki weeye then waxaa leenahay akoonkan abuuranaynaa okay akoonka waxaa leenahay qasnadan ku shubanaynaa waa checking deposit weeye marka waxaan doonaynaa inaan lacagta dhigano wax loo yaqaan bangiga aan dhigano okay checking deposit waxa loo yaqaanaa waa qasnada guud baa la dhahaa qasnada guud okay okay qasnada way leenahay inta soo deenayna dan waxa leenahay close baa leenahay okay wuu save gareeyay okay lacagta marka waxaan gaaraysaa $12,000 sida loo sheegay 3 baa dhacayna tab baa leenahay marka okay halka waxaa leenahay marka waa initial investment baa leenahay initial investment ganacsiga lacagtii lagu bilaabay baa leenahay okay marka inta qodno halkan marka dadkii ganacsiga soo maalgashaday waan qoraynaa saddex qof baa la sheegay qofka ugu horeeya waa Axmed qofka ku xiga waa Omar iyo Hamza midkiiba wuxuu soo maalgashaday lacag gaaraysa $4,000 lacagtaas uu darteed waxay isku noqonaysaa $12,000 okay halkan waxaan ku abuuranaynaa marka qofka koowaad waxaa leenahay add new baa leenahay okay type-ka akoonku waa equity waa maalgashi weeye continue baa leenahay marka okay waxaa leenahay qofka ugu horeeya waa gabadha oo kale Hamza marka hakad baa leenahay Hamza capital baa leenahay marka Hamza capital Hamza lacagta ay soo maalgashatay magaceeda waa dhamaystiri karnaa intaana waa ka soo qaadan karnaa okay save and close baa leenahay then lacagta waxaan gelinaynaa credit-ka lacagta waxaan leenahay $4,000 tab baa leenahay marka okay 8,000 marka programku kula shaqeynayaa $8,000 si debit-ka iyo credit-ka la isku leekaysiyo ma hal qof soo maalgashaday mise laba qof oo kale okay waa sii qaybinaynaa laba qof oo kale weeye like this one waxaa haray Omar iyo Axmed okay akoonka kala soo abuurno fanaxdan ku dhufan karnaa add new baa leenahay waa equity baa leenahay marka continue okay waxaa leenahay marka Axmed weeye okay Axmed capital marka Axmed capital then waxaa leenahay okay baa leenahay isna marka 8,000 soo maalgashay $4,000 buu soo maalgashaday then waxaa leenahay marka tab baa leenahay marka $4,000 okay lacagta kala hadhay wax soo maalgashaday hal yaqaano Omar baa soo maalgashaday marka haddaan qoraal ku bilowno laftigeeda hadda way la fariisin karnaa wax weyn maahan okay capital baa leenahay
akoonka sometimes waa loo fix gareyn karaa. Okay, then waxaan leenahay copy aan kasii qaadanaynaa haddii ifaba magaca nayla weydiiyo. Okay, waxaan leenahay tab baan leenahay marka set up baan leenahay marka akoonka typekiisu waa equity, waxaan leenahay continue baan leenahay. Okay, waa magaca isaga automatically noo badisiyey isna afarkunba soo diiwaan gashaday. Marka waxaa la doonayaa okay memoga isaga iska soo gelinaya. Memoga waa faahfaahinta weeye waxa uu yahay transactionkan ama recordingkan waxa uu yahay ayuu sheegaya. Okay, halkan debitka iyo creditka waa isla kala halkan 2 alif ku jira halkan 2 alif marka waa inay adee same equal noqdaan haddii kale waxa ay la khaldan. Okay, dhacdadan marka haddii aan save and close niraahno saasay sax ku tahay oo save gareynaa marka ka baxayna. Okay, reportada waxaan tegaynaa marka reportka waxaan tegaynaa good ee loo yaqaan partial standard oo dhaqdhaqaaqa ganacsiga lagala socdo. Okay, khasnadeena waxa ku soo dhacday $12,000 lacagta waa la save gareeyay oo bangiga ayaa la dhigay. Totalka asset-ka aan haysano oo $12,000. Okay, ciida soo maalgashatay waa 3 qof equity-ga marka 4 kun wax soo maalgashaday Axmed, 4 kun wax soo maalgashaday Xamda, 4 kun wax soo maalgashaday Omar. lacagta totalkeedu waxay gaaraysaa totalka equity wuxuu gaarayaa $12,000. saaxiibayaal aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaa jira course dhammaystiran oo duubnay oo haddii alla idmo materialskiisa iyo qalabkiisa ku wata haddii alla idmo taleefanka shaashada saaran igala soo xiriir. aad iyo aad u mahadsantahay.